adigoo jaranjarada la sii marayo kadibna tuur email kuwe shayga kaliya ee dadka oo dhan caalamkan isku raacayaan waa inaan hal meera ku noolnahay wax kaloo la isku raacaya malahan John F Kennedy bani aadamku kama zuulay inuu addoon u yahay noloshan adduun ilaa uu mawdku ka horeeyo tawfiiq al-hakiim musiibo walba kugu dhacayso waxaad ka qaadanaysaa darsi si aad uga baxdo adigoo xikmad khibrad iyo cilmi kasbaday oraashiinaysa adduunkan wax walba waa la aqbali karaa markii laga soo tago karaahiyada iyo dulmiga Leo Tolstoy haddii aad dareento in aad edeb daran tahay waxaad ogaataa in aad edeb leedahay sababtoo ah kuwa edebta daran ma dareemaan in ay edeb daran yihiin Mark Twain dadku waxay nacaladaan duruufaha noloshooda laakiin aniga duruufaha ma rumaysni dadka ayagaa sameeya duruufaha Job Bernard shayga kaliya sugan noloshan waa isbeddelka joogtada ah Heraclitus hogaamiyuhu waa sidii webi weyn laakiin laamo kala duwan ay ka farcamaan haddii webigaas macaan yahay laamaha ka farcamana wasiirada iyo waxa la midka way macaan yihiin noloshu waa riwaayad qosol badan qofkii u fiirsada waa riwaayad murug badan qofkii dareema geesinimadu waa sabarka hal saac Cantara ibn Shaddad qofka sareeyo xiqdi iyo cadaawad ma qaado sareyna ma gaaro qof caradu dabci u tahay Cantara ibn Shaddad mar kale noloshu way gaaban tahay barashadeedana waqti badan ayay u baahan tahay Heraclitus qofkii aamina nolol aanan adduunkan ahayn in ayna jirin wuxuu khasaaray aakhiraya adduunba Jalaaluddin al-Afghani magaalooyinka waa qabuuraha bani aadamka farqi la sheega uma dhaxeeyo geerida iyo nolosha sababtoo ah noloshuba waa hawsha geerida Dr. Mustafa Maxamuud dadku way hurdaan laakiin markay geeriyoodaan ayay soo baraarugaan al-Imam al-Ghazali dagaalada ugu adag ee aad adduunkan galayso waa dagaalka naftaada kala dhaxeeyo Dr. Mustafa Maxamuud qofkii ku dhaca dabinka shahwaadka adduunkan waxa qasab ah in uu addoon u noqdo dadkeeda al-Imam al-Shafi'i in aan u dhinto ayaan ka jeclahay in aan ka baxo ballan aan qaaday